maxaad ka ogtahay miisaaniyadda dawladda Soomaaliya haddaba wax ka ogow miisaaniyadda dawladda federaalka Soomaaliya sanadka 2022 ayaa ah 946 milyan dakhliga gudaha ka soo gala dawladda waa 250 milyan deeqaha dawladda la siiyo ayaa iyadana ah 694 milyan oo dollar taasoo ka dhigan in dakhliga gudaha dawladda ka soo gala uu miisaaniyadda guud ee dalku ka yahay 26% oo kaliya halka deeqaha ay dawladda ka hesho hay'adaha iyo dawladaha deeq-bixiyaasha ah ay miisaaniyadda guud ee dalkeenu ka yihiin 74%. dakhliga ay dawladda ka hesho gudaha dalka 250 milyan ah waxa ay dawladda canshuur ahaan u heshaa 173 milyan waxaana ay ka dhigan tahay in miisaaniyadda guud ee dalka 18% ay canshuur ka tahay. dakhliga kale ee dawladda ka soo gala gudaha dalka waa 77 milyan oo dollar waana khidmooyinka iyo shatiyada. deeqaha Soomaaliya bannaanka ugu imaada ayaa ah 694 milyan waxaana ay u kala qaybsamaan laba qaybood. qaybta koowaad waa 208 milyan oo dollar oo laga helo dawladaha shisheeye ee hay'adaha miisaaniyaddeena kaaba waana Turkiga, Imaaraadka iyo Midowga Yurub waxaana u badan dalalkaasi Midowga Yurub oo bixiya 35 milyan oo dollar. sidoo kale Bangiga Adduunka ee taageeridda miisaaniyadda iyo qorshihiisa howlgalka horumarinta siyaasadda ayaa laga helaa isku darkooda 134 milyan oo dollar. qaybta labaad ee dakhliga dawladda ka soo gala deeq-bixiyaasha waa lacag dawladda loo soo marsiiyo Bangiga Adduunka iyo Bangiga Horumarinta Afrika si loo fuliyo mashaariicda iyo shaqooyinka la rabo. qaybta labaad waxaa kale oo ku jira hay'adaha qaramada midoobay. Bangiga Adduunka lacagaha loo soo marsiiyo dawladda si loogu fuliyo howlaha iyo mashaariicda waa 454 milyan oo dollar waxaana mashaariicdaasi isugu jiraan dawlad wanaagga, caafimaadka, waxbarashada, la dagaalanka ayaxa, COVID-19, biyaha. Bangiga Horumarinta Afrika isna waxa uu bixiyaa 14 milyan oo dollar waxaana mashaariicdaasi kamida dib u dhiska wadooyinka iyo korontada. hay'adaha qaramada midoobay iyagu waxa ay bixiyaan 16 milyan waxaana kamida WFP, WHO, UNICEF, UNHCR, EGO Habitat, UN WOM, FAO iyo UNFPA. lacagahaas u soo xarooda dawladda meelaha inay ku kala baxaan loo qorsheeyay waxaa kamid ah xafiiska madaxweynaha 19 milyan oo dollar, baarlamaanka 25 milyan oo dollar, xafiiska ra'iisul wasaaraha 11 milyan oo dollar, arrimaha dibadda 10 milyan, maaliyadda iyo mashaariicda 203 milyan, qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah 29 milyan, arrimaha gudaha iyo federaalka, arrimaha diinta iyo awqaafta, cadaaladda iyo dastuurka, maxkamadaha 5 milyan oo dollar, xeraalyaha guud, hanti dhowrka qaranka, gargaarka maareynta iyo musiibooyinka, guddiyada heer qaran, hay'adaha difaaca iyo amniga oo ku baxa 170 milyan, wasaaradda tamarta iyo biyaha oo 6 milyan ah, wasaaradda macdanta 2 milyan, beeraha 2 milyan, xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa 3 milyan, kalluumaysiga iyo kheyraadka badda 2 milyan iyo bar, warfaafinta 6 milyan, boostada iyo isgaarsiinta 3 milyan, howlaha guud iyo dib u dhiska 31 milyan, gaadiidka, duulista iyo hawada 17 milyan, ganacsiga iyo warshadaha 4 milyan, caafimaadka 58 milyan, waxbarashada 30 milyan, wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada 1 milyan iyo bar, mashruuceeda baxnaano 219 milyan, isboortiga iyo dhalinyarada 900,000, haweenka iyo xuquuqda aadanaha 2 milyan. sidaas ayay miisaaniyadda Soomaaliya ee 2022 tahay inkastoo aanu wada sheegin meelaha ay ku kala baxdo iyada oo dhan haddana intii ugu muhiimsaneed ayaanu soo qaadannay. haddaba yaa mudan in wax badan loo qorsheeyo mana laga gudbi doonaa ku tiirsanaanta deeqaha shisheeye maadaama miisaaniyaddeena 74% ay tahay waxna la siiyo.